أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. أبو عبيدة بن الجراح ayaa maanta cashirkeenu uu yahay. Abu Cubayda radi allahu canhu waa kii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi likulli ummatin amiinun wa amiinu hadihi lummati Abu Cubayda bn ljarax. rasuulku ummad kastaaba waxay leedahay qof ammaanada moodeela oo tusaale fiicana oo lagaga daydo oo waxa weeyaan dadku ay muraayad ka dhigtaan ayay ummad kastaa leedahay. ummadda nebi maxamed aaminkeedu iyo qofka tusaalihiisu halkaa u joogayey waa Abu Cubayda bn ljarax biri nabigu calayhi salatu wasalaam. marka meel kastoo aynu joogno, xaalad kastoo aynu ku sugannahay, Abu Cubayda markaynu maqallo inaynu salaanno oonu ducayno ayaa munaasaba. sababtoy tahay Abu Cubayda waa ninka derajadaas aan cidnaba gaadhin, qofnaba una yeelanin saxaabada yeeshay weyaan. markii rasuulka dagaalkii Uxud u dhaawacmay waxaa dhex gashay laba silsiladood oo silsiladii birta madaxay ka gashay. markaasaa deedna waxa weeyaan saxaabigan Abu Cubayda orod buu isqaaday isagoo nabiga calayhi salatu wasalaam inuu ka saaro ugu talagalay, silsiladaha galay. markaasaa deedna mid buu soo saaray faintazachumaa bithaniyatihi fawaqaca thaniyatah, foolashiisii baa soo raacay oo laba ka mida soo raacday. maalinta ayadaa nafteeda wuxuu fahamsanaa ana alkufaara yuriiduuna qatla rasuul sala allahu alay wasalam, gaaladu inay rasuulka inay dilaan doonayeen. faxarasa calaa an yakuuna qariiban minhu, marka wuxuu ku dadaalay inuuban rasuulka ka agfogaaninoo si nebiga u ilaaliyo. laakiin daruurada qitaalku kuma ogolaanay, sababtay tahay dagaalkaad uma hogaaminaysid, xaggii xaggaa laga soo weerari, waa dibugorashaa samayn, hore u tallaabsashaa samayn, midig baa u dhaqaaqi, bidix baa u dhaqaaqi, meeshaadii ma joogi kartid. ayaa waxay u dhibgelisay inuu ka fogaado goobtii nabigu calayhi salatu wasalaam joogay. walaakin caynahi kaanata cala rasuuli sal alla alay slam, waxa weeye kaanata cala rasuul falama ra'aa sahman yanطaliq fayusiib rasuul. marka haddana mar labaad intaana taa ka gudbin ayaa silsiladii labaad ayuu ku qabtay ilkaha, xajiyey. markaasuu ka soo saaray nabiga calayh salatu wasalaam isagoo intaa iska ilaalinaya inuu rasuulku xanuujiyo, laakiin foolkiisii kale ayaa soo raacday. marka Abu Cubayda radi allahu canhu rasuulka ayuu isaga dhigay, leebta kusoo dhacaysuu isaga dhigay. markaasaa deedna waxa weeyaan markii macnihii hore uu soo cararay sid usoo orday u yimid nabiga calayhi salatu wasalaam. wuxuu yimid rasuulka oo dakramay oo dhiigga wejigiisa ka soo dareeray, uu iska tirtirayo midigtiisa. Abu Cubayda markii labadii xalaqadoodu ka saaray, labadiisii foolna way raaceen, oo asbaxa ahtaman, wuxuu soo baxay mid ilka la-aan ama afla-aana ayuu noqday Abu Cubayda. Abu Cubayda bn jarax radi allahu canhu ahd lcasharati lmubashiriin biljana, wuxuu ka mid yahay tobanka jannada loogu bishaariyey buu ka mid yahay. wasmuhu caamir ibn cabdillaah ibn ljarax ibnu hilaal baa la yihahdaa, magacaasa la yihahdaa. siiradu waxay warisaa inuu Abu Cubayda aabihii ilaahay dartii u dilay, ay siiradu yani wax weyan ay warisaa. aayaadka qur-aankiina ee khuseeyaana arrintaas ay macnihii ka waramaan, alwalaa walbaraa ka hadlayey ay ka waramaan, ayaa ka waramay in Abu Cubayda radia allahu tacaala canhu uu ma garanaysaa goobtaa dagaalka kaba soo bixin, ayay tilmaamaysaa. ninkan aslama biarbacati min saxaabati ilkiraam, 4 nin keliyaaba ka horreysay asxaabta. hum raggaasi cuثmaan ibn madcuun, cubayd bn xaarith, cabdiraxmaan ibn cawf, abu salamata bn cabdilasad, intaasaa ka horreysay. wa kaana dalika qabla dukhuuli nabiy sal slam daar laqan radi allahu canhu. xilligaasina waa xilliguuna rasuulku weli gelin
arqam gurigiisa una gelin. arqam waa nin dhalinyara reer bani makhzuuma, gurigiisu magaalada ka erbaxsan yahay, isagana ilaah hidaayo siiyey oo islaamnimada ku hanuuniyey. deedna waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam aan ku soo noqono waxa weeyaan abu cubayda iyo warkiisa. nabigu sala allahu alayhi wasalam abu cubaydu gacanta qabtay, wuxuu yihi likulli ummatin amiinun amiinu hadi lummati abu cubaydat ljarax. ummad kastaaba waxay leedahay nin aamina oo ammaanada model iyo tusaale u ah, ummaddan aaminkeeduna abu cubayda buri nabigu calayhi salaatu wasalaam. marka haddaan dib ugu yar noqdo arrintii ku saabsanayd waxa weeyaan dilkii aabbihii uu dilay abu cubayda. aabbihii gaal buu ahaa, wuxuuna soo raacay dagaalkii beder ayuu gaalada soo raacay. abu cubaydana madiinu ka yimid oo jihaadka ayuu dhankaas ka soo galay. aabbihii yaa wuxuu aada ugu dadaalay inuu dilo abu cubayda, yuu aada isugu dhibay siyaalo kala duwan bu isugu dhibay. meel walbo abu cubayda joogo unbuu raadsadaa, kuma badayaba inuu dagaalamo, meel kale ka dagaalamo, meel kastuu abu cubayda joogu raadsadaa. abu cubaydana wuu ka wareegaa siday saa ugu socotay markii uu tallaababa ka qaadi waayey oo waxa weeyaan uu magaranaysaa ka badbaadi waayey, aabbihii ka hari waayey, deedna waxa weeyaan isagiiba ku kala jeexay aabbihii. marka ma aha inuu abu cubayda aabbihii dilay, xaqiiqadu waxa weeyaan shirkiga aabbihii ku dhex jira ayuu dilay abu cubayda radia allahu canhu. shirki aabbihii ku dhex jira ayuu israaciyey. nasiibkana ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi innaka laa tahdi man axbabta walaakina laa yahdi man yashaa. maxamedow ciddaad jeceshahay ma hanuunin kartide, ilaahay baa cidda uu rabo hanuuniya buu ku yihi, hanuuniya. marka deedna ilaahay hanuun uguma talagelin, abu cubayda aabbihii hanuun looguma talagelin. xiina qadima ahlu yaman cinda rasuul, waa markan uu rasuulku leeyahay ummad kasta aamin bay leedahay oo uu sii sheegay abu cubayda iyo ammaanadiisa. waxaa jirtay reerka la yidhaha reer yamaneed oo welibana reer kasii ah muxuu ahaayey jilib kasii ah, ayaa waxay u yimaadeen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyaga oo doonaya in diinta inta la baro, markay bartaan ay ku qancaan kadib ay soo islaamaan doonaya. markay yimaadeen waxa ay ka codsadeen nabiga calayhi salatu wasalaam inuu qof mucalima raaciyo oo umuurta diinta bara. markaasuu rasuulku midigta abu cubayda soo qabtay oo qaal wuxuu yihi hada amiinu hadihi lumma, ummaddan aaminkeedu waa ninkan bir. reer bani najraan bay ahaan qoladu. غزوada lagu magacaabo daati salaasil bacathahu rasuulu salى اllahu alay slam madadan licamr bn caas radi allahu canhu. غزوada daat salaasil camr bn caas loo dhiibay, isagana waa la raaciyay. ciidankii camr bn caas la socday buu ahaa. wajacalahu amiira calى jeyshi fiihi abubakrin wacumar, amiirka uga dhigay ciidan nabigu alayh salatu wasalaam amiir uga dhigay cabdulaahi. ciidan waxa weeye abubakar iyo cumar ay ka mid yihiin. makaanada ninka la yidhaahdo abu cubayda uu ku leeyahay cinda cumar bn khataab radi allahu anhu, sayid cumar agtiisa uu ku leeyahay kabiiratun aad bay weyn tahay. faqad kaana alkhataab radi allahu canhu faqad qaala alkhataab atamanaa low ana hadihi daar mamlu'at rijaala mithla abi cubayda. khataab ninka la yihahba wuxuu yihi alla ilah waxaan jeclaan lahaa gurigan inuu buuxi lahaa rag sida abu cubayde oo kale ah, inuu ka buuxi lahaa baan jeclaan lahaa. shaam markuu yimid abu cubayda sa'ala canhu, markaasuu waraystay. qaala cumar radi allahu anhu ayna akhi, cumar baa wuxuu yihi walaalkii awey. waxay yidhaahdeen kuma walaalkaa, kumaad sheegaysaa? qaala wuxuu yihi cumar awey. cumar baa yihi abu cubayda awey. falama aqbala calayhi markuu yimid qaama cumaru ilayhi wactanaqahu, cumar baa u kacay, isku dhadhejiyey dhundhunkadeen. abu cubayda shaam markuu joogay wuxuu hogaaminayay ciidamada muslimiinta min nasrin ilaa nasrin, isagoo guulba guul uga sii yani wareejinaya ayuu muxuu ahaayey muslimiinta oo hogaaminaya, oo hogaamiyaasha muslimiinta waaweyn ka mid ahaa. xataa fataxa allahu calaa yadayhi addiyaar ashaamiya kulaha, ilaa ilaahay ku guuleeyey dhulkaa shaam oo dhan furashadiisa, oo furaat uu ka gaadhay xagga bariga, aasiya asuqraa aasiyada yar meesha la yihah u ka gaadhay xagga shimaalka. wadahama bilaadi shaam,
dhulka shaamna inuu soo weeraray daacuun baa soo weeraray fajacala yaxsudu naas xasdan markaasaa daacuunkii waxaa bilaabay inuu dadkii yani dabar goynayo dabar jarayo siduu dadka u laynayo marka laakinahu rafad an yatruka aljunda wadalla macahum sayid cumar waxa uu ka diiday inuu ciidanka ka mid ahaado u diiday azala cumar radi allahu canhu khaalidan radi allahu canhu sayid cumar ayaa wuxuu ka casilay mas-uuliyaddii shaam khaalid bin waliid wallaa makaanahu wuxuuna ugu bedelay abu cubayda almujarax buu ku bedelay radi allahu canhu ja alkitaab ila abi cubayda waxaa jirtay warqaddii bedelka ayaa waxaa loo keenay abu cubayda loo keenay warqaddii bedelka khaalid laga bedelay abu cubayde lagu bedelay ayaa loo keenay waxaa loo keenay abu cubayda loo keenaya marka yani raggaas ilaahay subxaanahu watacaala dartii ayay u shaqaynayeen rag kursi iyo manfaco iyo waxaa raadiya mayna ahayn saas darteed wax dhiba kumayna haynin khaalid bin waliid iyo abu cubayde midnaba inuu waxa weeyaan yani inuu magaranaysaa mas-uuliyadda iyo kursiga iyo waxaas wax dan oy ka lahaayeen raggaasi ma jirin wax dhiba marka mayna ku samaynin laakiin dagaalkii maadaama bartanka lagaga jiro oo dagaalka lagu jiraan uu yahay dagaalkii yarmuug 120,000 oo gaalo ah lala dagaalamayo ma sheegin abu cubayda warqadaas iyo yani casilidda ilaa markuu dagaalku dhammaaday mooyaane oo muslimiintu guuleysteen mooyaane markaasaa deedna abu cubayda ayaa la magacaabay ayaa yani khaalid bin waliid la kulmay qaa'id almaczuul oo isna mas-uulkii la casilay ah markaasuu kitaabkii magacaabiddu u dhibay shacra khaalid bilxarij khaalid cidhiidhi buu dareemay cidhiidhiga xaguu ka dareemay ma inuu hinaasayba ma inuu xanaaqayba ma inuu kursi doonahaba ma inuu meesha shilin ku waayeyba waxaasoo dhanba ma aha waayo ilaahay dartiiba u shaqaynayba waxa weeye yani laxjeclada ka haysay in yani waktiga lumay wey waktiga yar ee lumay ee uu isagu mas-uuliyadda hayay laakiinuna mas-uulka sharciga ahayn weyaan waqaal wuxuu yihi yarxamuka allah abu cubayd abu cubaydo allah kuu raxmo maa yamnacuka maxaa kuu diiday an tukbiranii inaad igu waranto lamaa jaaka alkitaab warqaddu markay kuu timid inaad sheegto maxaad idiido bu yiri abu cubayda wuxuu yihi wallahi baan ku dhaartay inii karitu waxaan nacay an agsira calayka xarbaka inaan mooraalka kaa jabiyo oon dhabarka kaa toogto ayaan ka cabsaday wamaa sulطaanu dunya nuriid kursi adduunyana maba rabna bis walaa lidunya nacmal adduunya darteed nooma shaqayna bis kulnaa fi llahi ikhwa dhammaantayana ilaahay dartii ayaanu walaalo ku nahay saasuu yiri cumar radi allahu canhu markii uu majuusigii ninkii gaalka ahaa uu dooxay sayid cumar oo salaad subax dadka tukanaya uu dooxay wuxuu dadka ku yidhi low kaana abu cubaydata xayan lastakhlaftuhu saasuu yiri abu cubayda haddii uu noolaan lahaa alla ilaahay waan idinku dardaari lahayo waxaan odhan lahaa mas-uuliyadda ummadda abu cubayda ha dhaxlo hayo baan odhan lahaa buyiri laakiin waxa weeye abu cubaydana ma noolo abu cubaydana waktigaa isagaa ma noolo ugu dhintay almuhim waxa weeye oo daacuunkii baa dilay abu cubayda radi allahu canhu daacuun la yihah daacuun camwaas oo aad yani ragga u dabargooyey u dabar jaray oo saxaabo badan iyo ragba ciidan badan ka laayay ayaa uu raacay abu cubayda waana kii waxa weeyaan warqadda u soo qori jiray ee odhan jiray haddii aad taagan tahayna soo dhaqaaq haddaad fadhidana soo kac warqadaydaasi markay ku soo gaadho amarkayga qaado ku odhan jiray markaasaa waxa weeye waxayna ahayd markuu arkay daacuunku suu dadka u laynayo ayuu cumar bn khataab radi allahu canhu halkiisa waxa weeyaan ma garanaysaa yuu warqadda markuu u qoray ee uu saa ku yiri warqaddii waxay u tagtay abu cubayda radi allahu canhu abu cubayda wuxuu yihi isna warqad bu wuxuu yihi walaalkay lex jeclada iga haysa iyo sida uu macnaha ii jecel yahay
ayaa keenaysee laakiin naftayda kalama jeceli ciidanka dhimanaya un baan la mid ahay marka dhaarintaadii dhaarisay iga soo cafi baan ku leeyahay warqada uu qoray deedna waxa weeyaan markii warqaddu u timid sayid cumar isaguna wuu ooyey wuuna ilmeeyey wuxuu yidhi walaalkay geeridu aad bay maanta ugu dhowaansho badan tahay aad bay ugu dhowdahay marka xaqiiqaduna sidaasay noqotay oo waxa weeye geeridii abu cubayda kamuuna badbaadin raggii faraha badnaa ee daacuunka ku dhintay ayuu ka mid noqday noolaba waa dhintee waxa weye dadkii qiimaha badnaa kulligood waxaan ka sheekeynayna o dhani waa rag waxa weeyaan qiimo badnaa oo dad wanaagsanaa oo ilaahay subxaana watacaala xiriirkiisa wanaajiyey ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in aan noqono kuwa xiriirkooda wanaajiyo oo aakhiro badbaada inaan noqono intaan isku soo noqonayno assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo xogo dhammaystiran fadlan falow garee oo ku xidhnow shakaal TV